بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada waa walaashin xushmo iyo mar labaad iyo muuqaal kale cusub iyo qiso aad iyo aad u murugo badan nala daawo waxay ahayd gabar macallimaday iskuulada magaalada ku yaala iskuul ka midana wax ka dhigtay intaa kadib waxa ay go'aansatay in ay guursato guurkeedii kadib muddo 2 sano wax oodama aysan dhalin waxa ay bilowday inay la xiriirto dhaqaatiirta caafimaadka si ay xaaladeeda wax uga ogaato muddo kadib tiktooraysadii ayaa ku soo wargelisay una sheegtay maanta wixii ka dambeeyay in ay noqon doonto hooyo uurna ay leedahay arrinkaas ayadii ninkeeda aad ayay ugu farxeen muddo kadib waxa uu dhashay ilmahoodii ugu horeeyay waxa uu noqday wiilkoodina waxay u bixiyeen maxamed ninkeeda waxa uu keenay naag jaariyad ah si ay u caawiso xaaskiisa ay ubadkana ugu daryeesho maadaama ay tahay xaaskiisa qof shaqeeyo oo inta badan guriga aanay joogin hooyadii muddo dhowr bilood kadib waxa ay bilowday inay shaqadeedii dib ugu laabato ilmihii yarayna waxay uga tagatay gabadhii jaariyadda ahayd si ay ugu xanaanayso ee ugu daryeesho walow gabadha jaariyadda aysan ahayn qof muslim ah waqtiga wuxuu sidaas ahaadaba maalin maalmaha ka mid ah iyadoo joogto shaqadeeda ayaa la soo wacay waxaana loo sheegay inuu dhintay ilmaheedii yaraa welibana si lama filaan ah hooyadii murug iyo walwal iyo oohin fara badan way iska sabartay intaa kadib waxa ay dhashay ilmaheedii labaad wuxuuna uu noqday wiilkii waxay u bixisay maxamed maadaama ay wiilkeeda curadka ee aad u jecleed mar walbana ay niyadda ku haysay hooyada hadda waxay bilowday in ay dib shaqadeeda u bilowdo haddana ilmihii yaraa ay uga tagato naagtii jaariyadda ahayd si ay ugu daryeesho ee ugu xanaanayso sidoo kale ayadoo shaqadeeda ku maqan ayaa loo soo sheegay oo lagu wargeliyey inuu wiilkeedii yaraa dhintay ay saakin nabad uga soo tagtay hooyadii way ooysay aad ayay u ooysay walwal iyo murugo fara badan ayay dareentay sababta ay mar walba ayada oo ka maqan ee ilmaheedu u dhintaan ayay aad uga naxday gabadhan jaariyadda ah cidnaba kama aysan shakin mar walbaana hooyada way sabar sii jirtay oo naxariis fara badan ayay u muuji jirtay waxa ayna u muuqatay gabar naxariis badan firfircoon shaqadeedana aad u wanaagsan howlkarna ah cid mar walbaba ka shakinaysa ma aysan jirin dhimashada ilmaha ama in ay lug ku leedahay naagtan jaariyadda ah qof mar walbaba ka shakinaya ma aysan jirin oo qoyska wax tuhuna kama qaadin hooyadii uurkeedii saddexaad ayay qaaday gabadhii jaariyadda ahayd waxay ku tiri aniga waan kaa tagayaa waddankeena ayaan ku laabanayaa waxaa la ii soo sheegay hooyaday aad u xanuunsan saas la'alligeed waan baxayaa gabadhii macallimadaheed waxay ka codsatay inay sugto intay ka helayso shaqaalihii kale ayaa yimid waxay tiri muddo isbuuca waxaan kaa rabaa inaad gabadhan shaqada guriga ii kala barto oo aad ii kala tusto wayna ka aqbashay oo way ka ogolaatay waxa ay guda gashay inay gabadhii jaariyadda ahayd ay barto shaqadii maadaama ay iyada shaqada ee aad ugu wanaagsaneed gurigaana in muddo ay iga shaqaynaysay waxay bilaabeen gabdhihii in la sheekaysto oo wax walba iyo shaqada qaabka ay tahay iyo meesha ay waxyaalaan iyo sir walba ee ugu sheekayso waxa aynu ku tiri haddii aad rabto waxa aniga aan sameeyo waad samay kartaa waxay tiri maxay tahay waxa adiga aad samaysay waxay tiri haddii aad jeclayn barbaarinta iyo daryeelka ubadka waa dili kartaa oo anigaba sidii aan sameeyey sababtoo gabadhan waxa ay dhashay 2 caruur ah mid walbaan aniga ayaa ka dilaayay wax ay dareentayna malahan oo cirbad sun ah ayaan madaxa ka duri jiray sidaas ayaynu ku dhiman jireen ilmaheeda qof iga shakiyay male marka haddii adiga necab tahay inaad ilmaha hayso sidaas waad ku samay kartaa jaariyaddii way naxday aad ayaynu u murugootay naagtan qayaanadeeda iyo gabadhan macallimadda daacadnimadeeda ayayna la yaabtay waxa ay bilowday jaariyaddii inay safarkeedii ay isku diyaariso oo ay xirxirato waxaa israacay gabadhii macallimadda ahayd ee jaariyaddii suuqa wayna u soo adeegtay si qurux badan ayayna u ambabixisay oo hadiyado fara badan ayay u soo iibisay maadaama ay gabadhan in muddo ah gurigeeda ka shaqaynaysa si wanaagsan ayayna u ambabixisay jaariyaddii cusbeed ayaa si halhaleela ku soo gashay macallimaddii qolkeeda wax walbaana u sheegtay waxa ayna ku tiri waxaan rabaa inaan ku su'aalo arrin aad ayaan ugu murugaysana waan baqayaa
waxay tiri ilmo ma leedahay oo ilmo hore ma soo dhashay waxay tiri haa waan lahaa ilmo hore laakiin way iga dhinteen 2 caruur ayaa iga dhimatay waxay tiri haddaba wax ma ka og tahay sababta ay ilmahaada u dhinteen iyo cidda ku lug leh maya waxay tiri hadda ilmahaada waxa kaa dila waa jaariyadan kula joogto naagtaana waa naag qayaanooley ah sirteedana lama fahmi karo hooyadii aad ayay u naxday aad ayay u argagaxday waxa ay bilowday in ay naagtii disho oo ay garaacdo ay aad u qayliso waxay tiri qayaano ayaad igu samaysay waxaan kaa dhigtay xigtadayda ubadkayga ayaan kugu aaminay adigana sidaas ayaad igu samaysay mas guriga ii jooga ayaad ahayd dhabarka ayaad niga toogatay intaa kadib waxaa imaaday aabihii guriga wax walbaana waa loo sheegay waxa uu keenay askartii si loo xiro jaariyadii hooyadii waxaa la yidhi wax caddayna ma ku haysaa naagtan jaariyadda ah mase waad iska garaacday awalba takhaatiirta waxay ku dhaheen wax jirdil ah wax garaafo ah kama muuqdo ciyaalkan oo mar walbaba si caadi inay u dhinteen ayaa la moodi jiray hooyada inta wixii ka dambeeyay waxa ay go'aansatay in ay marnaba qof bini'aadan aysan aaminin ilaa qof ay ku kalsoon tahay ma ahe is ilmaheedu uga taganin shaqo walba ay bannaanka ka haystane inay maanta kadib jooji doonto si ay u xanaanayso ubadkeeda ay u daryeesho marka haddii aad tahay hooyo ubad leh ubadkaada shaqaalaha ha ku aaminin haddii aad tahay hooyo qaylo badanne wayba kasii daran tahay oo shaqaalaha aad cadaadisid adigana ilmahaada ayuu cadaadis saaraya oo wax fara badan ayuu ku samay karaa marka hooyo ilmahaada adiga hayso